بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. شرقدونك مدنياشا شرفت بدنا يقولها وكيلة حقيقة قاسمياشا هي هالوضعنا ذا قولها هي بعض الصحافة واحد كسلام يا سلامة السلام كالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواء ونكسن مدنيال soo noqod wanaagsan waxaynu galnay jimco dheer maalintii arbacadii khamiistii oo aynu fadhinay maadaama aynu la xisaabtankii soo diyaaraynay iyo jimce maantana waa sabti maanta jadwalkeena waxa ku qoran wasaaradda duulista wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada mudanayaal koramku waa 35 in wasaaradda duulista hawada iyo garoomada dib loogu dhigo xisaabtanka ogol waa 32 diidmo waa eber aamus waa 3 35kii mudane fadhiyay saacadoodkooda ku dhanyiin sida daraadeed sidaasaynu isula qaadanay in wasaaradda dib loogu dhigo xisaabtanka waa maasantiin mudanayaal waxa u gudbaynaa insha Allah shaqada xigta waa shaqaynaynaa sidaad ogtihiin waxa soo ku soo biirtay dawladda wasaarad cusub hay'adii hadmana waa la baabiyay marka xeer madaxweyne ayaa lagu baabiyay sida uu dhigayo qodobka 4-aad farqadiisa 12aad ee dastuurka dawladda Puntland oo u dhigan sida tan ogolaanshaha intisayaasha xukuumadda ee la xiriira curinta ama baabi'inta hay'adaha dawladda waa xeer madaxweyne marka sida daraadeed waa awoodii golaha wakiilada inaga ama diidi karna ama ogolaan karna sida daraadeed waxaan rabaa qoraalkii xafiiska madaxweynaha ka soo baxay inuu xogeeyo inuu akhriyo inaan ka codsado xogeeyo inuu akhriyo bismillaahir rahmaanir rahiim guddoonka iyo mudanayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xeer madaxweyne lambar 25 18 bishii abriil 2022 kuna saabsan baabiinta hay'adda hadma iyo dhismaha wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka dawladda Puntland madaxweynaha dawladda Puntland markuu arkay dastuurka dawladda Puntland markuu arkay xeer madaxweyne ee ku saabsan 19 bishii March 2022 kuna saabsan magacaabista wasiir ku xigeenno wasiiru dawlayaal cusub markuu tixgeliyay dib habeynta lagu sameeyay wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa bannaan ee dawladda Puntland wuxuu xeeriyay waxa la baabiyay hay'adda maareynta masiibooyinka ee hadma waxa la asaasay wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka dawladda Puntland waxa ku saxiixan madaxweynaha dawladda Puntland mudane gudoomiye ujeedo ansixinta baabiinta hay'adda hadma iyo dhismaha wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka Puntland tixraac madaxweyne xeer lambar 25 ee 18 bishii abriil 2022 kuna saabsan baabiinta hay'adda hadma iyo dhismaha wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka Puntland sidaas daraadeed mudane gudoomiye waxaan halkan idinku soo gudbinayaa dhismaha wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka Puntland iyo baabiinta hay'adda hadma haddaba waxaan si xushmad iyo qadarin golaha wakiilada uga codsanayaa ansixinta dhismaha wasaaradda iyo maareynta iyo masiibooyinka Puntland wada shaqeyn wacan سعيد عبد الله دني مدحوينها دولة بوتلان واي waxaan u gudbaynaa codayntii insha Allah billaah kareem maya waana diidi karnaa waan ogolaan karnaa mudanayaal codayntii baan gudbaynaa raalaada mudanayaal yaa ogol xeerka madaxweynaha ee soo baxay ee hay'adda hadmo lagu baabiyay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka na lagu magacaabay yaa ogol mudan diidmo codayntii ansixinta baabiinta hay'adda hadmo iyo dhismaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinku waxay u dhacday sida tan koramku waa 38 ogol waa 26 diidmo waa 7 aamus waa 5 38kii codsaas ugu dhayn sida daraadeed waxaan qirayaa in
ansixinta baabi'inta hay-adda hadmo iyo dhisidda wasaaradda gargaarka iyo maareyntu ay masiibooyinku ay sidaa ansax ku tahay insha Allah bismillaahi kariim wasaaradda cusubna ay ku dhisantay hay-ad hore lagu baabiyay mudanayaal idinkuna maasantiin berito waa 26 Juun waa maalmihii xorriyadaha Soomaaliya waa maalintii calan Soomaaliya laga taagay ugu horeysa dhul Soomaaliyeed sidaa daraadeed waxay ka mid tahay maalmaha uu leeyahay dalku ee fasaxyada marka berito 26 Juun fasax bay nahay 27 Juun waxa imanaya wasaaradda amniga aad ku sii tala gashaan insha Allah ilaahay idinkii waa maalinta Isniinta 28 Juun waxa aan inoo imaan doona mas'uuliyiinta xasaanada u baahan waxaan inoo iman doona wasiiradii cusbaa ee la magacaabay iyo kuwa xilalkooda la buuxiyay oo 9 wasiira iyo maxkamadii insha Allah bilaa kariim marka uu soo diyaar garoob insha Allah shaqooyinka kooramkana la soo buuxiyo oo alla soo bato ilaahay idinkii fadhigeena maanta saas aynu ugu xidhan wasalaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh waa inoo 27